ya Punjabi alaabta oo ma kala jiro dadka madaxyada duubtama duuban oo yani raab camal ah laakiin nahi anagu bila nahi maqanaadi ma ya ka weedan macna hindi waayo bohoda jaani bohot ma sida balgooda ya bohot aad u fiican tahay camal bohod jaani aasaasinta marka waa tahay daawadayaal intaa aan kaga soo laabano hay view dad badan oo TikTok-gii ku waashay oo habeen iyo maalin dhex fadhiya oo duhur iyo casir ku jira oo ayaga laftirkooda heestaan heli jiray waxa laga yaabaa in caawa la yaab la noqoto in ay caawa la yaab la noqoto aniga anaa ugu horeeyo heesta cajiibsana inta kale ma garan daas ka jiibinay bas wax kala garan la kama maqal dabcan heesta dhaxdaas ka soo ma heesta chorus alla choruskeeda fiican choruskeeda waa tahay markana sheekooyinka ayaan guda galeynaa sheekooyinka caawa tiraday ka bateen dad aad u fara badan ay jiray oo qof walbana wuxuu leeyahay aniga sheekadeeda aan laga tagin hal aqriyo magacaygaan meesha ka maqla baraha bulshada lagama wada gaaro laakiin saan u sheegnayba timeka ugu badan ayagaan siinaynaa dhankayga ma bilaaba ama dhankiina أنا مركز إن عقل إيه فيري هذا مديك يجرس هذا بالله. أوكي. waayahay sheekada ugu horeysay dhanka baraha bulshada daawadayal caawa in laga soo gaarto hadii aan eego waa Cabdinuur Axmed Cibaar waxaan joogaa buu yiri magaalada Muqdisho salaan sare reer RTN ayuu yiri gaar ahaan asxaabta barnaamijka baraha bulshada waxa sheekada horta ii soo diray waa sheeko dheer أبيو عاوني كسو أدا في عنيد. أنا واحد دير أنا نسيب مليب أنا أروح شيء. واحد كسو أدا أنا واحد سكير فرقي أو سكير بسيط. أما منيش كسو أدا. منيش أنا ليه؟ أنا مركز صباح هاي كسو دعيستا واحد دير نسيب وش. وايا. وحو يري إنين يحاس كيسة أو إسقابي أيا وحي كوهشيين إن يسامركا أما حلقة حقاقة. أي آذان هوتيل بدك كو أجيالي oo ay 20 sano ka hor ku aqal galeen subhaan 20 sano ka hor aqal galeen dalxiiska ahla maxaa adduunka ayaga meeshii soo boqonayna hadana ku aqal galeen laakiin xaaskii ayaa mashquulshaan leh xilliga xagaaga macnaha hoteelkii aadayeen gabadhiya mashquul noqotay la yiri 20 sano arooskoodii ka soo wareegatay way bixi weysay ninkii kaligiis ayay fasaxday waxayna tiri waan ka daba imaanayaa siibax ninkii hoteelka markuu tagay baa la yiri isagoo shandadiisii iyo dharkii habaysanaya ayuu si lama filaan u arkay kombiyuutar qolkiisa yaalo oo internet leh isla markiiba waxa ku soo dhacday la yiri fikrad ah inuu xaaskiisa warqad email u diro magaalo kale oo imaaday oo dalxiis ayadana waxay tiri aan soo bixi doonaa waxa la yiri markii uu warqada qoray ayaa waxa ka qaldamaa la yiri xaraf kamid ah ciwaankiisa xaraf kamid ah ciwaanka xaaskiisa ciwaanka uu emailka ku diraaye ayaa ka qaldamtay emailkii ka qaldamay oo qof kale u dhacay waxayna fariintii u dhacdaa la yiri haweeney kale oo ay asay u saaran tahay oo markaa ka soo noqota la yiri aaska ninkeeda waan naxdin qoftii 20 ka sano la qabo u diraa si arooska garantoonaysa xarafa ayaa ka qaldan waay asay saaranta dhab emailkii markii ay furtay oo ay fariintii aqrisay kursiga ayay ka dhacday kadibna way suuxday islaantii asayga u saarnaa yani ninkeeda hadda ka soo dhintay saanin hadda dhinta hadda mise soo qoray wiilkeeda ayaa u soo galay wuxuuna arkay hooyadiis oo dhulka taalo oo aan dhaqdhaqaaq oo dhan lahayn shaashadii ayuu fiiriyay wuxuuna arkay warqadii oo u qoran sidaan aan lahayn waxa ku qornaa isleeda warqada oo suuxiyay islaanta meeshii waan gaaray 20 sano meeshii ugu dambeysay ku aqal galeen waxa ku qoran saas dahay meeshii waa aan tagay adnoo ku sugay iga dhow imaam ileen dalay qof ay balansanayeen waqti qaabkeyga ani han ma kartay waayahay waxa la yiri fariintu waxay u qorneyd la yiri xagee maray nabad tagay imaam la amuudha wuxuu yiri macaanto si nabada ayaan u tagu dhahay horta waxaana macquul ah inaad yaabto markaad aragto warqadayda hayaab inuu yiri waayo
computer ayaa meesha lagu diyaariyay dadka loogu diyaariyay yiri computer ayaa meesha loogu diyaariyay dadka qof kasta warqad buu u dirsan karaa dadka uu jecel yahay waayay waxa hubaal uu yiri inaad wax kasta diyaarsatay maadaama aad jimcaha soo socoto soo bixi rabto dhahay aad ayaan kuugu xiiso dhahay aragtidaada ayaan sidoo kale u xiiso dhahay safarka aad soo baxayso mid raaxo leh inuu noqdo ayaan rajaynayaa sida safarka aan hadda soo galay oo kale laakiin alaab badan iyo dhar badan ha soo qaadan inuu yiri waayo meesha naar waayo dhawaaqo marka dambe ku dheela baasha wuxuu isku barnaamijka naar u galay wuxuu harjeynaya wuxuu yiri safar laakiin wuxuu yiri alaab badan iyo dhar badan ha soo qaadan waayo meesha naar waayo dhahay macnaha kuleelka ka jira ayaa xad dhaafa hana soo daayan macaanta uu soo qoray nafta meesha iga ficilaayeen markii ka daba tagay xaajiga aad buu mahadsan yahay cabdinuur axmed cibaar oo jooga magaalada muqdisho oo sheekadan nala soo wadaagay aad baad mahadsan tahay waayahay dhankaaga waa kulay haye maxaa dhankiina adoo sabootinaysa maya ani saan markii la bidixay noqonaysa laakiin saas marka ta midig waa haye munish istaahil macallin oo joogta muqdisho aad baan ku salaamayaa tiri farxiye cabdalla iyo tiimka RTN sidoo kale waan ka qaadnay sheeko ila qosol ah tiri ninkii bariiska ku gubtay ciwaan bay ugu soo dhigtay bariiska aad u jeclahay baa lagu gubtay dhageyso maanta maalin maalmaha ka mid ah ay tiri ayaa nin bariis aad u kulul cantuugay markuu afka ka gubtay ayuu is yiri haddii aad bariiska soo tufto dadka ayaa kula yaabi doonee macnaha cisho markaas ayuu hay adkaystay inuu bariiska kulul afka ku celiyo ayuu damcay kuleelkii ayaa si uu xamili waayay macnaha ninkii ayaa xanuun awgii ilmeeyay markaas ayaa wadaad soo hor fadhiistay wuxuu yiri ninka ayuu weydiiyay maxaa ku helay oo la ilmeynaysaa dabcan wuxuu ku jawaabay wadaadkii wuxuu ugu jawaabay macnaha nabiga ayaan soo xasuustuu yiri bariis kulul ku gubtay marka waan qiirooday sadarteeda la ilmeynaya soo gala laakiin يعني المديس بو المدي ولا يقعد محقر ولا بريس بيقاس وحو عيبست بريسك إنه طفى وعيبست سو ما ليه كلام مرق بريسك يا كوجبت وعيب كلو كسي وين واتها هي أبي لو سكت هذه هذا ده كوجبت أنا ما تفاني سيدي سكت الجلا بينو كده بقينا عرفت بك كوجبتي ده أوكي طبعا لكي هديها فيديو ورقد حين صدرت مليون عمر أو كسجن أي ليري جارس أدبن إيدي سلامية بهذا baraha bulshada artiyan ay tiri waan ka qaadnay sidoo kale ay tiri okay aan aragno malin waxay noo sheegtaa mid kamid ah baqaylada adduunka ugu waaweyn ay xaaskiisa waxay u keentay cunto ay leeyahay xaaskii oo si weyn uga heli jirtay ay tiri inay gacaliyeeda cuntada la cunto ayaa soo garab fariisatay waxayna gudagaleen inay isla cunaan markii ay xoogaha wadeen ayaa leeyahay cunadii ayaa ninkii ku yiri xaaskiisa cuntadan waa ay macaan badan tahay haddana ciriiri ayaa jiro oo maxaa ciriiri ka labadooda kaliya cunto isla cunay wuxuu ku yiri cuntadan aad ay macaan badan tahay haddana balse ciriiri ayaa jira xaaski iyadoo yaaban ayay ku tiri waa maxaa ciriiriga jiro waa aniga iyo adiga une ninkii markaa wuxuu ku yiri oo ugu jawaabay xaaskiisa waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo aniga iyo saxanka kaliya kula ayadaaba macnaa ciriiri ku iyada culays ku haysaba kaasa biyo inuu u bagi aniga waa cunaayo ahay inta malaga bare farkaan dhiilahay أرض ميراث حنديلا كذا بيو عمل وقالوا وحصوق هذا إلى أرض مقاعد دريس كتك دريس عاد سوق هذا إلى دريس عاد سوق هذا معنا أذن وحي معنا عنسة أنا وعنا حاجك سوي وبحاول حاجك حاجك سوي إيش كأد فريق أدب ما سني هقف كنا رسول ذاك مركنا وحنا يا محي الدين إسماعيل وتشوج هرجيس سومالي لان سلام سري ولا شيء فرحية عبد الله مؤمن وأنت غير واحد بد ما سنت هاي ولا عليه sheekadan aan hayo wuxuu yiri nin reer baadiye ah ayaa Ingiriiska loo qaaday oo macna loo xambaaray laga la doono miskiinka asagoo la yaaban daaraha dhaadheer ee Ingiriiska ku yaala markii la geeyay ayuu maalin magaalada London dhex qaadaa magaalada dhexdeeda dhex mashaaxay socday
markaasuu qofkii ka hor imaadaba wuxuu weydiiyaa dabaqan yaa iska leh su'aal qabriyeed طوارئ بادية xoogaa u socdaa war dabaqa ayaa iska leh xoogaa kaluu socdaa war dabaqa ayaa iska leh xoogaa kaluu socdaa war dabaqa ayaa iska leh وروين هبا دولية دبقة إسكالة waxaa dhacday markaa qof kasta uu mashquulsan yahay layiri marka oo shaqaa loo kala ordaayo howlaa lagu jiraa oo shaqay u kala socdaan waxaa loogu jawaabaa layiri I don't know ma garanayn إلى ذلك أفكار حتى وحاول قربا مركلت إنجليش وحكنا أرنا وقفوا ضاي أرنا بس يكون بيها طبعا oo uu ula jeedo qofka layiri ma aqaan waayahay haddana hore ayuu u socdaa dabaqla ayuu arkaa sidoo kale ayuu dadka u weydiiyaa iyaguna I don't know yiraahdaan ugu jawaab ninkii reemiga ahaa intuu yaaba ayuu yiri oo ninka I don't know la yiraahdo yiri guriga badan horta dabaqu tagaa wuu weydiiyaa qofkii u jawaabaha marka I don't know wuxuu u maleeyay magac nin kale waa barun boorto qof walba baa weydiisad hadda dabaqa wadada dambaris yaa la cid garanayso arano waa lagu leeyahay wuxuu yiri ninkan horta wuxuu yiri iyo I don't know horta guriga badan uu yiri bismillaah maalin kale mayd la wada ayuu arkay marka ninkii mid buu weydiiyay wuxuu yiri yaa waay qofka dhintay ee la wado walaalow war qofka meeshan ku dhintay aad wadaan ee dadka dhan ay daba socdaan yaa waa yiri yuu ah reer ku ah horta ninka dhintay I don't know lagu jawaabay intuu farxay ninkii reer miyiga ahaa ayuu wuxuu yiri I don't know maanta dhintay waa inaan dhaqaalihiisu yiri wax ka bil la qaystaa oo wixii dabaqo London aan ku arkayo ninkii iska laartaad ma dhinto dhaay waxba ka bil la qaysanayo waxbaan aniga wuxuu inaan ka baajar bilaad u tagay waagaag Muxudiin Ismaaciil aad buu maasan yahay oo sheekada sheekadaas oo kale ay soo dhacay nin gaal baa la yiri wuxuu lahay mid Soomaali baa gaari marsi eegayay wala qabsada xalii waa eeg u dilaysa soo iskii English ma yaqaan moqtay sorry yiri cheers man lay macnaha cheers man lahayn raacno Soomaali ko English ma marka English ga cusub ninka tawiya ana cheers man lahayn u buusiya ani marka ku sheegayso luqadka la waleeyahay abar kadib igu soo dhacday inay af Soomaali tahay ay waa tahay Abdisalaan Ali oo jooga xaafadda Islii Nairobi dhamaantiina salaan sir ayuu yiri dabcan waan ka qaadnay fani yiri sheeko fani soo diray caruurta yar sida ay u fikiraan oo mararka qaar uga qosolsiiyaan hooyooyinkooda waxaas wuxuu yiri cunug yar ayaa wuxuu arkay hooyadiisa uur leh markaas ayuu dhahay hooyo caloosha maxaa kuugu jira markaas ay tiri hooyo walaalka baan sidaa markaas yiri hooyo ma jeceshahay isu weydiinayo ayadii su'aash weydiiyay hay tiri haabay ku tiri intuu qosol kulaha hooyo hadaa jeceshahay maxaa u cuntayno waaciyaadka dabcan ilmo dabcan ma kala garanay ma garanay meesha ana soo martay dabcan uu leeyahay hadaa jeceshahay maxaa u cuntay saxada aniga jeceshahay yiri horta maxaa u cunto waaye saaqad wala caadi inuu weydiiyo faniga waagaag dabcan sheekadani waxay noo soo diray waa Maxamed Cabdiraxmaan waxa ku noolahay ayuu yiri dalka Canada Canada waa Canada dum maqlo mugta macna gacanta ay u xiran tahay waxyaabo badan Canada ma maqli karo okay wuxuu yiri Maxamed Cabdiraxmaan sheekadan dhacdo run ah ayaan idin la wadaagay ayuu yiri oo aniga igu dhacday waa wax asiga ku dhacay ba dabcan in aragnu wuxuu yiri sheekadan waxay ka dhacday dalka Canada waxayna u dhacday sida tan ayuu yiri runtii dalkan aad ay wada jecel aad ay wada nacib yihiin ayuu yiri dadkani da'da waliba markii la joogo qurbaha aad ay da'da weyn u nacib yihiin ayuu yiri wala siyareeya dabcan maalin ayaa anigoo jooga Canada magaalada aan ka deganahay ayaa waxa dhacday ayuu yiri in layga casuumo xaflad ay dhigatay gabar oo waliba ani aan gabadha aad oo waliba si fiican u aqaan oo xaflad dhalasho ah dhigata ayuu yiri kadib waxa dhacday ayuu yiri in aan gabadhii u hambaliyeeyo waxaan hadiyadii ku qoray macnaha waa nin hadiyad waday waxaan hadiyadii ku qoray ayuu yiri da'dii ay jirtay oo ahayd 37 sano waa iceebay uu qoray kadib wuxuu yiri horteedii ayaa dhigay gabadhii markii ay ishi ku dhufatay da'deedii ay intay xanaaqday kulaha ay tiri horta maya waxay tiri horta adiga ku casuumay yaasi ku sheegay da'da aad jira aniga sheekada waxa halay markuu da'deeda ku soo qoray da'dii ku qoro hadana public dhigay hatta dad ku sheeg laxbaa wixii asxaab meesha jooga markaas waxay tiri
horta yaa ku sheegay da'daad yaa ku wacday horta yaa ku casuumay horta adiga ku yaa casuumay ku sheegay da'daad tiri ciil baa qabtay ma jira taagan waa ka duubay lahaadi dabcan hadduu jeclaystay inuu da'deeda sheego macnaha la wadaago happy birthday uu dhaho dhalasho aan dhaho asna hada daacadu iska ahaa dumarkan aad ma abin da'dood in la sheeg farxi hadda dad meeqa jirta habeenka xalaal tago isxaraajinay bis lama mislaamis waayahay sheeko kale weli noo harsan laakiin mararka qaar daawadayaasha barnaamijka waxay soo weejiyaan maadaama idinka barnaamijka aad isla wadaan mararka qaar haddii aad xujooyin intaa isku tuurtaan ama annaga laftarkeenna aad noo soo bandhigtaan si toddobaadka aan uga soo jawaabno hal xiraal ahaan aan usoo qaadano horta xujo ma taqaanaan xujo fur aan maqli jiray waa gaara xujo fur xujo googa labay kala tahay iska xujale way ku dhex jirtaa may isla xujo waa laakiin googaada waa waxyaabo cayiman waay googaada waxyaabo la yaqaan oo markii googaada ku dhacaada la kaas ka gudub iyada laftirkeeda waxay sii dhalaysaa xujooyin kale laakiin xujo marka lagu xujo fur bal hal xujo soo tuuraan aragnay arcaa hal xujo maskaxiisa ka soo tuuro aniga horta ani hal dabeecada qaba hal mid ku xumaa markii wax samee liidha wax dhawaab hibno weligaaba farxiyo xijisana marka adigana adi hormar maya war ani inta xasuusana ma igu soo tuurtaan waxa ka bilaaba waxa ka rabaa ama wax culus ay weydiinin may wax yar oo fudud ku weydiina wax yar oo fudud magac gabdheed oo iska bilawda magac gabdheed oo iska bilawda oo eena ku dhamaada iska ka bilawda eena ku dhamaada yes wallahi waxaas marka ay weydiinaysid wax ka weyn ma ay weydiinaysid ma ku fududeen waa hadda saadiya hay mid kale bi soo qaban kartaa adoon fikirin ay 1 2 3 isla magac aan weydiinayna waa Sumaya isla magac aan weydiinayna ayada ha iga qaban ninkan iga qaban ma ya tir ma igu dartay waa lagu daraa adiga ma durka dhaysaa iyo sa ay lixda xaraf waxa waa saddexan maxaa la dadka cunaan saddexdana dadka ayagaaba la cunaa waa hal magacne ku soo celi waa magac lix xaraf ah saddex intaas nuu sii fikiraya ma wixii warwarkii ma igaleen ba wili maxaa fikiraa waa lix xarfood magac waa lix xaraf macna saddexda hore dadka cuna dadka ma yar saddexda hore saddexda xaraf ugu horeysa dadka macnaha la cunaabo dadka cunaan waa xayawaan dadka cuna Soomaaliga sax saddexda dambana wax iyaga la cunaba ha sheeg waa fududtay magacaas adana wax la iska tuur hada taqana farxiyo leena ما تقان فرحي حبيبي بنات انا واسوق شيء اسمه شيء فرحي حبيبي بنات ولا لا wax la cuno afar saddex hore dadka cuno saddex damar iyaga naftirkooda la cuno saddexda la cuno horta aan waa aqaana waa ari allah ari ma jirto xasan ari kula ari waa saddex ari waa xoolo ari ma ku jirto laakiin miskeenis magaca miskeen ari qof ari la dhaay waliga ma arag warsi ana dhaama wax la ood wax mid kale saddexda hore waxa lagu dhahay waa wax dadka cuna waayo saddexda dambana marka dadka cunaan waa lix xaraf marka iswadato had ma ku sheegay ha lixdu isku xiran tahay aylo may ay suma aylo cadaka waa maslax oo farsamada ku jirta Allah laakiin waa si beesha ka soo qabto kale laakiin aniga magac ma sax mas ii lax waay farsamada uu ku jira laakiin waxa dhilay labada xayawaan waay muskil asaga xataa ma yaqaan aduu yaqaan wuxuu ka soo tuuri lahaa hoos iga soo sheegay hore ka ridi lahaa adoo ku sii sheegi lahaa mas ii lax wallahi waa sax mas ii lax wax ka soo noocaas kala jir iyadan oo saddex xaraf saas ah okay ana weydiinaya marka oo adiga mid kale labadiina ma anima weydiinaysid iyada weydiin laba xaba igu rideen ada ay weydiiyay waana ka jawaab khalaas ana qoftaan ay weydiisay khalaas adiga waa markana ha markaan ku weydiiyo waa inaad degdeg ku sheegtid yani ma jirto maya xasuus ma jirto ma xasuusanaysid maksan ku sheegi karaa hadii wax waa wax iska fudud waa yani wax dhib badan ma ku weydiinay sida hadda kale maslaxul raadinay ma aha moogtay waa wax iska fudud laakiin yani time ma qaadanaysid okay waxa sheegtaa xarfaha ugu horeeya ama waxa sheegtaa laba hees oo kamid ah ay qaad fanaanada waxa soo dhaxtala ku fudeedina fanaanada waa taas hore ka sheegay laba hees kamid ah Bobsi qaaladan hees qaado hal dak Soomaali weyn sidee baa waxay la hortay qaaday heesti kale muxuu ahaa heest hungo
اريا لو دعاني ما قاعد ما كويدين عليك اريا كويدين لا صحسن ده محل لك اريا ويدين دي هم كم حلها انا نفتك ايغي ما قان هم بدا قاده مايا ادو حال ودا waxa sheegtaa laba ere oo kamid ah heesti hadda waxa dhahay Soomaali weyn sidee baa waxyeela heesti ku tirsan ereyadu ha taaba sheegtay laakiin kala ma iqaadid ama caadi la dhaxgelisan leh ama wala min ma dhaxgal haysta magacada la xafidsan waa gudaysa sidee gudaysa waa qaadi ku dhacday gudaysa hay adu waxa sheegtaa haye waa u aaraysa macnaha fudad waxa adaka aarano iyo meel fudud oo soo qabato meel aad u fudud oo soo qabtaan waa inaad fikirto waa haysta meel dheer ku geeyna farxi fanaaniinta Nairobi mid kamid ah ku soo qabana haye wiliba ku adag ugu adag maxay ii weydiinay markay cadadnimo waa taas ay markay weydiinayso adag wax fudud laba heesa kaaraba oo fudud oo qaad fanaanka la hayo fanaan aqoon ay sheegay markaa qof la qaaraba qof aan ahayn ma sheegay ani hadda ku sheego waa sheegay lil balil لا لا ايوه عدو سنه تاكو دحده تاكو هاي بتكل لينغا في هرم تصقون عليك لينغا هو دبابه قفتها سوق قفتها زاري وداو هست افريكا ما بقالو افريكا تهي هستي قبلنا انا دنك هيسا ولا في عيان حد يلا دنك هيسا انا ولا في عيان هي أنا هذاك فجيسنا فرحيك أرورتي أنا هسه كوشة غمريها الفنانين تقاطع مقعد على مي أما أنا هسه في عنتا ليل بليل هذا بك شيء يصير وفنان لكن يصير بدي يعني راب كمان لكن هذا يس فضل أجرت حتى هذا كحسن ها أنا شيء هاي شك هيستوى تاس من هذاك أحسنها يرتوى شيز فرام براديو سوا يا شيز فرام براديو ينفض والله فنان هاي هست إيقاد واي بس مقعد ما بقرني سيدي أبكو ريريسا هستي ميرهي أبي قلبه ما wax la ka saay ma isheg حتى أسحن فنانة أما هست إن إب أما حايد هذا فنانة سال هيس إيقاد الشيء هاي شيك كذا كلها وذن أفريقيا هلا هيس إيقاد دبل شيك هكيا شيء كذا اسكت صاحب سنة وذن أفريقيا ما لقى سوى حتى نكنا هذه حلقة ساعة كويتي أنا خلاص أكسر أنا كل ريريسا ما يدري عارف فنانة دوين الله نحرسته حليم خليفة مقول إيه حسن سمتر إنا إذا هذا أنا ذاك الأمور يا حسن سمتر حسن سمتر بس هذا جري شانيتو متكلم الله هايو ممكن سيترا بدو سمتر إذا كسر ديار يا غلانة ذات قرار واه جاي شدي أركسان كجي مالنا يكفتن كي برنامج على كمية دم الصوت كنا عاي الصوت ويقدم بوحيا هذا قارب أقولي وديار sheekadan ayaan ka tagi karin oo wiilkan uu ku soo qoray hal ay akhriyo please waa Ibrahim Ali macallin oo jooga London meeqa sheeka caaw London iga imaatay London ani Canada qof intana waa yahay waan akhrinayaa sheekadan wuxuu yiri aad baa idin salaamay baada baraha bulshada RTN sheekadan yaa la iga tagin buu yiri waa ka anagoo waqtigii aad loo weeriyay ayaan sii akhrinaynaa habeenada kamid ah ayaa waxa lagu casiimo yiri wiil dhalinyaro xaflad aroos ah wiilkii arooskii ayuu u soo diyaar garoobay markii ay gaarto yiri waqtigii arooska lagu ballamay ayaa wuxuu wiilkii yimi hoolkii arooska lagu qabanayo wedding hallka maale haye wuu isku soo diyaariyay waa abiyo camal aroos isku soo diyaariyay maxaa la yiraahdaa ana aroos ma watagee okay markuu maraya albaabkii laga galayay ayuu wuxuu arkay laba tilmaamood mid waxay leedahay hadaa tahay familiga arooska midig u leexo tilmaamta kalena waxa ku qoran hadaa tahay martida bidix u leexo ana arooskayga saas ka dhigay okay hadaba dhageysa markaa isagu ma ahayn familiga xaqi martida ayuu u leexday falaarti dhanka martida aadayso uu aaday hadduu wax yar socda ayaa haddana wuxuu arkay laba tilmaamood mid waxa ku qoran hadaa tahay dadka arooska hadiyadaha u sida midig u leexo tilmaamta kalena waxa ku qoran hadaad waxba sidin bidix u leexo jaa laba kala la sii kala sameeyay ninkii odayga ahaa ee wiilkii aroos ka qayb galay halka markuu marayo ayuu dhinacii dadka hadiyadaha aan sidin haddana u kacay because hadiyad ugama soo talagelin sax u galay laakiin arooska waa uu socdo isku soo diyaariyay qosol u dhaxda soo galay wiilkan mise wuxuu yiri
mise wuxuu yiri markuu cabaar socday wuxuu arkay isagoo dibadda taagan Anaa hoolkii lagu waa isdhahay qabanayo wallahi hoolkii xafladii lagu qabanayo asagoo banaanka ka taagan buu arkay. si waxa saas ku lahaa markaas ayuu wuxuu ogaadaa la yiri in si reer magaalnimo ah loogu soo sheegaya haddii aad hadiyad u sidin arooska soo gal ha soo xaadireen wallahi bila sheegtay aan markaan arkay midda dambe farxay midda dambe markaan arkay waaba isdhahay laakiin si reer magaalnimo banaanka loogu soo tuuro ka waran adoo lagu ogeynday yaa ku baabka dambe ka baxday banaanka u baxay Kamera ku qabanaysa dad laakiin waa maya kaamirada loo ku qabanay fiiriyo marka aroosyada- hawlka gashay laakiin markaan ilbaabka ka soo gashay ma Waa lagu tilmaamay. luuqa gashay marka loo fiiriyo aroosyada dhawaanahan dadka badi markay tagaa in hadiyad geysaa waa yar tahay qasab ma in la wuxuu geeyo leeyahay maxay tahay qasab ma in fiiri arooska muhiim waaye inaa hadiyad mid ay geysid wadiina aroos marka dii la keenay dharka ragam ku jira waa ku jira bala marka sala keenay yal jujin tay arooskiisa ma ano asla ma garanay arooskiga dii qasba ina keentina waagaag haddaba wiilkan ugu dambeyn banaanka loo soo turo aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Cali Macalin gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay sheekooyinka intay ka harana toddobaadka kale ayaan dib u soo dhigi doonaa maadaama waqtigu uu nagu yar yahay hees aad u macaan oo xiritaan oo dhanka iyo hindigan aan idiin hayno maxaa leedihiin gabagabadii aad baad u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha badan meel walba joogtaan oo aan isla annagii leh marka waa idin xiisna dabcan idinkana waa noo xisteen inkastoo sheekooyinkiina caaw aad ii qanciyey waan idin kuwa kale kuwan ka qosol badan abiyo maxaa leedahay ana caaw horta hal waxa yeelay farxiyo daawadayaasha barnaamijka daawanaya waxa le aad ay u mahadsantihiin daawadayaasha gaar ahaan abiyo aadina waa mahadsantahay because caaw daawadaha kamid ah soo farxiyo maxaa daawada soo adiga barnaamijka waday maya saataa hore kugu sheegay haday barnaamijka caawa daawadaaba ka ahay maxaa yeelay saa ugu xiisaa si aan mid si aan farxiyo soo koobi karin marka daawadayaasha waxa le aad u mahadsantihiin ayadin leena anagu isku wada xiran barnaamijkan waa barnaamijkan sida hore kugu sheegnay inta sheekooyinkooda la aqrino waxa le insha Allah next time la aqri doona assalaamu calaykum waa sidaas inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caawa waxa uu toos idinkaga imaanaya xarunta TV-ga magaalada Nairobi abiyo iyo Munish ayaa barnaamijka tabinta qayb igala ahaa iyo anigoo farxiyo ah waxaan u mahadcelinayaa Maslaxa Abuukar Xaaji oo dhanka farsamada barnaamijka qaab qurux badan uga hagaajiyay sidoo kale dhanka kaamirada Cabdiraxiin ayaan u mahadcelinayaa waxaan idinku dhaafaynaa hees hindi ah oo aad u macaan oo dhanka iyo Punjabi ya Punjabi alaabta oo maqli jiray dadka madaxyada duubtama duuban oo yani raab camal ah laakiin nahi 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 ya anagu bila nahi maqanabi ma ya ka weydano macna hindi waayo bohoda jaani bohod waa sida balgooda ya bohod aad u fiican tahay camal bohod jaani waa saxsanta marka magaalada adu waxba kama taqaanido anaa ka imaaday waa ku raaca dib malaad waya heestaasi waxaan filayaa in aad fadhiga uga kici doontaan maadaama barnaamijkan in badan imisa daqiiqan soo fadhinay 56 daqiiqo maadaama aan soo fadhinay in la wada istaagi doono waa hagaag waxaan leenahay sida ayo nabadgelyo